Waxyaabo badan oo la sii saadaalinayay horaantii usbuucan ayaa maanta rumoobay, waxaana la dhihi karaa tani waa bilowga dagaalkii saddexaad ee adduunka. Inagee caasimadda Kiev ee dalka Ukraine oo saakay ku waabariisatay jawi noocan ah. Waa qayladhaanta dagaalka iyo xabaadkii u dambeeyay oo ka baxaya dalka Ukraine oo saakay madax banaanidiisa iyo inuu sii ahaado dal dunida ka tirsan ay u qoonsanayso dowladda la deriska ah ee ka awoodda weyn ee Russia. Dalkan Ukraine caasimadiisa Kiev iyo magaalada u dhow ee la yiraahdo Kharkiv saaka waxaa ku soo dhacay aroortii gantaalo waaweyn oo kaga yimid dhanka ciidamada Ruushka iyo kuwa gobolada dhawaan dowladda Ruushka ee madax banaanida siisay ama ay u aqoonsatay dalal madax banaan ee Donetsk iyo sidoo kale gobolka lagu magacaabo Minsk. Ciidamada Ruushka oo wata dabaabaadka iyo diyaaradaha guuxooda ka dheereeya iyo gantaalada loo yaqaan cruise missileska ayaa saakay garaac ku bilaabay airportka iyo xarunta ciidamada cirka ee magaalada ku taala badda ee la yiraahdo Mariupol. Magaaladan oo ku taala bariga Ukraine ayaa ahayd magaalo nabdoon. Saakase waxaa ku soo duulay oo qabsaday ciidamada dowladda Ruushka kuwa oo 4 jiha ka soo weeraray. Sidoo kalena magaalada Kharkiv oo ah magaalo ahaan u xigta caasimadda Kiev ayaa saaka waxaa ku soo dhacay gantaalo gidida diyaaradaha iyo xarunta difaaca cirka ee ciidamada Ukraine ay ku lahaayeen magaalada Kharkiv. Caasimadda Kiev ayaa la geliyay iyo dalka guud ahaanba xaalad degdeg ah waxaana madaxweyne Petr Zelensky sheegay in dalkiisu uu isdifaaci doono ilaa qofka ugu dambeeya ee Ukraine ah uu nool yahay. diyaaradaha Ruushka oo ku duulay Joghoose ayaa saakay gebi ahaanba duqeeyay magaalada Mariupol dekedeeda airportkeeda iyo goobaha kale ee muhiimka ah. Sidoo kalena waxa ay ciidamada Ruushka ku sii siqayaan qaybaha kale ee u dhow caasimadda Kiev ee jihooyinka waqooyi iyo bari iyo galbeedba. madaxweynaha Ruushka oo saaka warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaanay qabsan doonin dal Ukraine la yiraahdo oo aanay jirin dal ay ku duuleen, hase yeeshee waxa uu sheegay in operation yar oo military ah ciidankiisu ka soo fulinayaan gobolka Donbass oo sheegay dhawaan in uu yahay dalka madax banaan wadanka Ukraine intiisa kale. xili madaxweyne Putin oo ku faanaya cududda iyo awoodda ciidamada iyo dalkiisa dhaqaale ahaan kamid ah dalalka dunida ugu waaweyn oo sidaa u hadlayo ayaa madaxweynaha dalkiisu saakay qilqilka ku jirta xorriyadiisa iyo jiritaanka dalkiisa Petr Zelensky oo ku calaalay inay waajib tahay inay difaacdaan xorriyadda iyo madax banaanida wadankooda 2022 aanu jirin state ka tirsan caalamka oo la gubeysto iska badaa wadan ka tirsan Yurub iyo NATO. Putin oo isagu jecel inuu awoodiisa tuso reer galbeedka iyo wadamada u daba dhilifleeya ayaa sheegay in uu si dhow ku soo ceshan doono si awood ah iyo si maskax ah midda ay noqotaba dhammaan dalalkii ka tirsanaa midowgii Soviyetka, halka reer galbeedkuna ay naawilayaan inay dhammaantood NATO ku daraan wadamada bariga Yurub iyo dalalkii la oran jiray Balkaniska. dagaalka saddexaad ee adduunka bilowgiisa ma la dhihi karaa dagaalka saaka ka qarxay dalka Ukraine mise Ruushka oo haatanba ciyaarta ku gacan sareeya ayaa caalamka ka talin doona dhinaciisa bari sidii ay way ahaan jirtaba. dib aan ugu laabano xilligii dagaaladii koowaad iyo labaad ee adduunka, taariikhduna mar kale dib ha isu qorto. haddii kale Vladimir Putin ha la helo madaxweyne ka celiya saakay tallaabada uu ku dhaqaaqay ee uu cududdiisa ku tusay caalamka. ilaa iyo haatan waxaa la soo tabinayaa khasaarooyin isdaba joog ah kuwa oo ka dhashay dagaalka saakay foolka ah ee dhowrka jiha uga bilowday ciidamada qabalmoogayaasha ee dowladda Ukraine. Ra'iisul Wasaare Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in dadka reer Ukraine dhammaantood ay tahay inay isbitaalada tagaan oo ay dhiig ku deeqaan. sidoo kalena wuxuu tagay goobihii furimaha saakay ciidamada la soo duqeeyay ay xeryaha ku ahaa kuwa oo diyaar garow ugu jiray dagaal dambe oo mustaqbalka saadaaliyaan, hase yeeshee saaka la soo kadiyay. qiyaastii 8 qof ayaa dhimatay oo rayid iyo shaqaale dowladeed ba isugu jira, waxaana dhaawacmay ku dhawaad 40 kale. sidaa waxaa sheegay Petro Shevchenko oo ah wasiirka qorsheynta ee dalka Ukraine. sidoo kale ciidamada Ukraine ayaa haatan diyaar garowga ugu dambeeyay galay, waxa ayna ku dhawaad 5 jiho oo dagaal ah uga qaadeen ciidamada Ruushka kuwa isku dayay inay dib uga riixaan goobihii saakay ilaa xalay laga qabsaday. hase yeeshee waa goorma waa mar xeeriya fandhaal kala dhaceen marka ay Soomaalidu tiraahdo iyadoo ku dhawaad 30 kiiloomitir ilaa 50 kiiloomitir loo jiro magaalada Kharkiv
oo kaabiga ku haysa caasimadda Ukraine ee Kiev iyo magaalada Mariupol oo aan wax dhaaxa ka dheerayn caasimadda dhanka bari ee badda. isbahaysiga NATO iyo Mareykanka oo kaliya ma waxay ku ekaan doonaan cunaqabateyno iyo meediyaha oo ay ka qaylqaliyaan mise kaalmo rasmi ah ay u fidin doonaan dalkan saaxiibkood ahaa ee Ukraine ka oo kala qayb qaadan jiray go'doomintii iyo daandaansigii lagu hayay Ruushka tan iyo dhamaadkii dagaalkii qaboobaa ee adduunka. xilli Ruushka haatan jihooyin fara badan laga soo weerari jiray oo aan ognahay in Poland oo xuduud la leh gantaale yaalaan Ukraine tan laftirkeedana dowladdu ay la sameyn jirtay ciidamada Mareykanka iyo France ay haatan ka lug baxeen saaxiibadeedii u bilaabay dagaalka. hase yeeshee dagaalka haatan uu ugu yeeray Ruushku Ukraine iyo saaxiibadeed ayaad moodaa inay uga sii lug baxayaan xilli ra'iisul wasaaraha Ingiriisku saakay oo BBC-da ka sheegay inaanu marnaba Ukraine kaligeed ku dayn doonin Ruushka ka cudud weyn. hase yeeshee dhawaaqa Boris Johnson ayay ku tilmaameen dadka siyaasadda tacliiqiya too late ama wax yar oo aad u soo daahay wax saameyn u yeelan karana aanay jirin. caasimadda Kiev ayaa saaka laga dareemayaa meel u eg in laga qaxqaxi doono dadkuna laynan dhaadheer ayay galeen taraafiguna waa joogto. soo xalqooyinka dambe ee ku saabsan dagaalka Ukraine halkana subscribe sar si aad ula socoto barnaamijyada dambe waad mahadsantahay.